waxaan meeshaan isugu nimid dhibaatada dhallinyaradeenna haysatay inaan ka hadalno intaasaan isugu nimid waxaad og tihiin dhallinyarada marka koobaad bini aadamka noloshiisa qaybta ugu muhiimsan waa dhallinyaranimada mujtamaca qaybta ugu muhiimsanna waa dhallinyarada waxa mujtamaca hormariya oo sharafta u keena oo lagu xisaabtamo oo aabbayaasha iyo hooyooyinka berri ee mustaqbalka iyo hoggaamiyeyaasha ummadda ee mustaqbalka waa dhallinyarada inaan dhallinyaradeenii aan korinno oo hooyada iyo aabbaha ay ku dadaalaan oo tabardarradii dhallinyaronimada ay ka soo saaraan oo markuu ugu xoogga badnaa oo ugu quruxda badnaa uu jidka ku dhinto cadaalad ma aha inaan maalin walba aan dhegaysanno hooyo ooyeysa oo canugii ay u soo jeedday oo ay ku rafaaday oo ay soo korisay oo ay soo gaarsiisay 17 18 19 20 22 sano ay soo gaarsiisay in lagaga nixiyo canugaagii oo maydaha jidka yaala ama moolka hor yaala cadaalad ma aha waxaan rabnaa marka maanta inaan ka hadalno maxaa sababay dhallinyaradeen waa u jeednaa inay baaba'ayaan programkan maanta waxaan u sameynay ma ahan inaan maxaa la dhahay magac ku raadsano ma ahan organization inaan u sameynayno ma ahan maxaa la dhahay inaan qof iska gadayno ani magacayga boostay jaamaca la dhahaa Pakistan ku soo koray anoo waxaan imaaday teenager inta alxamdulillah hooyo ahay 3 wiil iyo 1 gabar aan leeyahay waxaan rabaa marka inaan inii sheego muhiimka community-geena inay isku imaato inay tahay muhiim sida ciyaalkeena u badbaadsana maxaa yeelay kayga hadduu fiyo yahay kaaga uu xun yahay kayga biri ma fiicnaanayo jidkaasuu raacaya marka waxaan rabaa inaan inii sheego programkan hooyooyin dhalinyaro iyo hooyooyin badan oo Minnesota meel kasta ka imaadeenba baa isku soo dabarugay inay ka hadlaan dhibaatada ciyaalkeena haysata ina ciyaalkeena badbaadin karno community hadday isku imaato oo wax wada qabsano wax badan aan badbaadin karnaa maxaa la dhahay wax badan oo waxaan arkay maxaa la dhahay faraas ku fiiqfiiqno the reason why ciyaalkeena badanka meesha u taagan yihiin run hadday inii sheego maxaa yeelay hooyo ku mashquulsan tahay aabba ku mashquulsan yahay masaajid ku mashquulsan yahay community leader ku mashquulsan yahay that's why ciyaalkeena banaanada u taagan yihiin that's why we losing our kids out there maxaa yeelay we forget them waqti ina galino ina ayaka ka warqabno war how can we save maxaa la dhahay our youth laba hooyo inay tashtaan ay dhahaan saacuni kaaga u badbaadiya saacuni mahayna u badbaadina maanta adduunka wax ka fiican ma jirto let's not yanis ambareen let's point fingers at each other let's help each other hooyo hadii dhiban tahay caawi ha ku sheekaysanin maamooyinka ayamahan kuwa naga waaween ani am a young mother but kuwa waaweyn 24/7 Snapchat iska cayniyaan where's their kids maxaa naga qaaday xishoodkii dadnimadii aan lahayn as a Somali I feel like what has done way baaba'ayaan I'm worried for my daughter 13 years old maxaa yeelay she's gone 24/7 waxay ku jiraan social media they see everything we are the role models and if we don't change anaka haddaan iska bilaabin then don't expect in ay ka isbedelaan muslim waan nahay laakiin dhaqanka America waaye idinka dhaqankiina wuu kala duwan yahay sidii ina oo la dhaqantiin waaye dad American ku dhashtay ilmahan wadan gooni ayaan joognaa taas waa ina ogaatiin waalidiintiina qalad ma lehidin ilmahana qalad ma laha ma is afahmaysiin problemka waa taas waxa rabaa oo kale inaan idin sheego wax walba waxay ka bilaabataa alla ka cabsi badana waalidiinteena ilmaheena maanta dhan waxaan dhahaynaa waxa sameey tuko waxa laga yaabaa waalidiin ayaga tukaneen oo ilmahooda tufsineen oo hortooda ku tukanayna laga yaabaa inay jirto waa ina kulligeen isagoo tukanna oo isbarna oo ilaahay tala saarna oo ilmaheena caawinna oo u duceena intaan inkaari lahayn maalin kasta waxa jira waalidiin dhahayaan bax hor u bax meeshaas kaliinigaas ku dhimo waxaas ku sameey inta sadhiilan ilmaheena waa ina kulligeen isku imaana oo u duceena masaajidada uga duceena oo fundraising u sameeyna ilmaheena oo programyaal oo waxa jira oo na caawin kara anaga programyaashaas waa ina ilmaheena kaxeena oo geena oo na ceeb ka cabsanin ceeb waahina haysataa already kulligeena ceeb waana haysataa ilmaheena hortooda ku dhimanayna mana caawin karno taas ayaa ceeb kulligeena isku imaado Soomaalidiin inta iska halin lahaydeen waxa laga yaabaa adoo cunug kale ka hadlaysa cunugaaga guri ku joogo wax walba inuu sameeyo laakiin ma ka warqabtid taas ayaa laga yaabaa ilmaha dadka caawinina oo ilmihiina ku soo noqda oo iska wada hadla oo idinkaas caawiyo isku wada imaado Soomaalideena kulligeena muslimiina nahay walaalo waa nahay dhaqankeena isku dhaqan waay soo kulligeena isku imaado oo is caawiyo
taas ayaa rabaa inaan idin sheego waa ku mahadsantihiin allah iyo ogolaatay inaan fikraddeeda idin sheego السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وأمهد علينا يا ماموينك ما أنت كسوق قلي أرنتان نغلا سوق قلي مروينك مرت شرفتا أبيالك جوجا دمانتوت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك لك الحمد لله نعمة الإسلام أولا إلهي سبحانه وتعالى أمهد علينا إسلامنا نغدي هل كان سوق كيني بعدما مهد هدنا هل بيئد نغدي أو سوماليات هل لوقت كهد ليس ما شاء الله ما أنت مهم كان اسكوغن نمد أما أرنتان اسكوغن نمد وحويان عيال كني أو قدكي كبحي أو سسود دبجي تميسي أرنتان مدبدا aan ka seexanay haddaan nahay community haddaan nahay aqoon-yahankeennii hadday yihiin culummadeennii hadday yihiin intii wax noo baratay dhammaan laga wada seexday hooyooyinkii aqalladii ayay ku ooynayaan hooyo kasta meel ayay ku ooynaysaa keligeedayna taagan tahay cid u soo baxdana ma lahan u soo jiiqdana ma lahan laakiin maanta we want together as a community as a one person rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka bini'aadanka ah islaamku waa hal jasad qof hadduu xanuunsado qofka kalena waa inuu la xanuunsadaa buu yidhi laakiin arrintaas waxaad u malaysaa in aan ilownay waa tahay boosteeyo maxay tahay sababta maanta halkan waalidiinta iyo dadkan soomaalida isugu imaadeen sababta abu waxaa waaye laba habeen last isbuuc waxaa dhacay 7 ciyaal oo Soomaaliya ba overdose cuneen ay overdose noqdeen kiniiniyaasha waxay cuneen drugska laba of them way ku dhimatay marka wixiina way sii bateen ciyaalo badan la arkaa maalin kasta isbitaalka la geeyo oo overdose noqdaan marka sababtaas aanu isku kaay keentay inaan dadkan iskugu yeerna aan ka hadalna dhibaatadan haysata arrintan arrin ku cusub miyaa dhalinyarada drugs isticmaalaysa mise waa wax soo socday in muddo ah wax nagu cusub maaha wax muddo soo socday waa laakiin hadda wixii way nagu bateen saa'id bay noogu wateen hal habeen 7 ciyaal oo hal mar overdose noqday hadda ka hor mayna dhicin maana maqlina soo wax saa'id bi wixii u soo badanayaan waxaas saa'id u soo cusbaanaysanayna halka ay ka imaanayaan iyo waxa halka uu yahay wali ma isla garateen community-ga halka abo hadda waa la wada imaaday waa la wada shiray qof kastaba wuxuu aqoon u leeyahay ka hadlay hadda waxa sameeynayna circle waxa la dhaho oo wareeg ah oo halka sidaan ku gaari lahayn inteena meesha iskugu imaatay inaan ka hadalno halku muxuu yahay marka sidaad u malaynaysaa adiga halka wuxuu yahay runna hadda ku sheego waa in community-gan horta isla shaqeeyna accept gareena horta problemkan inuu jiro waa inuu qof kastaba qaataa khaladka inuu wax ka leeyahay ciyaalkan meelaha taagtaagan ciyaalka overdose noqonaya haddii masaajid noqoto haddii community noqoto haddii noqoto maxaa la dhahay organizationada macallimiinta dugsiinta hooyooyinka aabooyinka kulli khaladka kulliga waa inaan accept gareena haddaan rabno inaan su'aal aan gaarno solution arrintan ma arrin soomaalida kaliya ku egba mise waxaa jira dad kale oo soo galootiyo sida dad ka soo jeeda geeska afrika oo kale Ethiopia Sudan ma jiraan wadamo kale arrintan la wadaago dhalinyarada sidan tahay way jiraan laakiin anaka u badan Somali community aad ugu badan Somali community aad u maqalnaa marka dadka kale anaka xoog ma saarna laakiin waxa ognahay community-geena Soomaalideena dhalinyaradeena inay saa'id ugu badan yihiin marka haddii dhalinyarada ay dragon isticmaalayaan dragon halka ka imaanaya ma ogaateen meeshu ka imaada lama yaqaano dawladda waa la fariisana ma yaqaano meeshu ka imaanay waxay dhaheen wax kuwa waxa waa kiniiniyaal isku dardaro oo jidadka lagu gado intii ay joognay goobtii ay isugu yimaadeen waalidiintii dibadbaxay maanta ayaa waxaan kula kulmay qaar ka mid ah jaaliyadda oo iyagu waxay leeyihiin xarun lagu dhaqo caruurta isticmaasha drugska waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay ugu talagaleen dhibaatadan jaaliyadda soo fosaartay iyaga oo magacooda marka hore ku bilaabay ayay Somali TV waxa uga warrameen sida tan magacaaga السلام عليكم إذا لا ليدها نجا السلام عليكم أنا مقعي والله سوزن waa tahay idil waxaad leedihiin xaruntan lagu dhaqo dadka isticmaala drugga xaruntan ilaa imisa ay furantaa horta walaal xaruntan waxaa la furay June 26 oo this year ah hadda ayaa laysan ka qaadanay waxaan degannahay in Burnsville Minnesota Burnsville ku taala magaalada meesheena waa substance abuse oo drugs aad ku waxaan leenahay ku daawooyinka kiniiniyada lagu dhaqo nurse jooga rehab place waa outpatient rehab waa meesheena marka waa ka waa tahay maxaa ugu talagasheen jaaliyadda waad aragtaan dhibaato ay soo foosaan youthka ma aha waa over 18 and up waa dadka ugu talagalnay waa dadka xanuuniyada daawada drugs addictionka
qamrada ha noqoto other kiniinyaal ha noqdo cirbada ha noqdaan waxyaalahaas oo ugu talagalnay annaga waa tahay waad aragtaa jaaliyaddii Soomaaliyeed waxaa soo food saaray dhibaato dhinaca dhalinyarada ah dhalinyaro marka lagu leeyahay waxay ka bilowdaan ilaa iyo 17 ilaa up to 25 maantay waalidiin badan baa halkaas ugu soo baxday idinka maadaama xaruntan ay tahay xarun aad idinku maamushaada Soomaaliya maxaa ugu talagasheen annaga waxaa ugu talagalnay inaan waalidayaasha caawino kow laban waxaa ugu talagalnay inaan wiilasheena dhalinyarada inaan caawino ani wiilal badan ay la dhashay laftigayga waalid baan ahay gabdhihii riis baan haystaa marka hooyo xanuun kasta waa dareemayaa maantana walaalahayga inay rafaadkaas iyo dhibaatadaas inay galaan ma jecli marka anyway aan walaalahayga ka caawin karo ama hooyo kasta ka caawin karo ama wiil kasta oo waxaas ku rafaadayo waa la joognaa abaayse dhahda nurses baa haysanaa professional staff baa haysanaa dad oo muddo sana waxaan oo soo mar waa haysanaa annagana waa joognaa experience ku leena aniga countyga 5 years u shaqeynayay marka I'm here to provide my experience I'm here to provide walaaltimadeeda and marka inshallah that's our mission that's our goal and abriyan la dhaha Burnsville hadda laga furay abaayada dhahda Juna la furay marka inshallah if you have dad hadda taqaaniin caafimaadka u baahan we're always here to help waa tahay marka la leeyahay dad baa laga dhaqayaa drugs ama la caawinayaa jaaliyadda kulliba dad badan baa hadda waalidiin badan waxaa jira carruurtooda ay drugs isticmaalaan meelay aadaan la fariinteena Soomaali TV u ramaysaan u marinaysaan xagee idin kala soo xiriiriyaa abo number aan leenahay Burnsville waa meesheena waraaqdeena waa tan laga soo wacaya telefonka waa 952 406 8105 952 406 8105 waa tahay haddii uu jiro waalid hadda ilmihiisu ay isticmaalaan drug isla markaana baqaya oo isla haddii aad xarumahan kala geysa ama dadkay ogaadaan dhib baa soo food saartay keebaa u fiican inuu guriga ku haysto qarsado iyo inuu idin keeno aad ka caawisaan annaga inuu noo keeno fiicnaan lahayd waalidka waa la hadli lahayn waalidka information iyo resources waa siin lahayn aboo hadaa wuxuu ka hadlaya Norvac oo ka hadlaya oo ciyaalka oo markay overdose sameeyaan laga caawiyo marka education baa la siin lahaa waalidka haddii waalidka ay jeclaadaan in wiilkooda guriga ugu joogana waa loo soo diri lahaa resources telehealth la sameyn lahaa maadaama COVID-19 hadda socdo face to face keena we're limiting it just to make sure dadka inay caafimaad ay leeyihiin ba waalidka waxaa ka jeclaan lahaa in anagana la soo xiriiraan first and just to talk about what the issue is and to help them figure out the science first and yeah I guess that's waa tahay ugu dambeyn idil xaruntan markii qofka la idin keeno ma meel lagu haynayo qofka mise waa meel lagu dabiibayo inta uu joogo kadibna gurigiisa lagu celinayo waa meel lagu dabiibayo inta uu joogo gurigiisa lagu celinayo waa outpatient rehab aad iyo aad u mahadsantiin